kulanti wacan oo wanaagsan asxaabteena baraha bulshada naga la xiriirto halkan aan taaganahay wuxuu ku dhow yahay masaajidka xalay la weeraray weerarka uu ka dhacay oo nin gaari wata oo masaajidka dhex galay ilaa dhowr 10 qof ku dhawaad ayaa ku dhaawacantay oo Soomaali ay kamid yihiin waxa la ii sheegay 3 qof oo Soomaalida kamid ah in dhaawacyo halis ah oo culus ay gaareen dad badan oo Soomaali ah masaajidka ku taxan oo ku tukado in ka soo qoomiyada karan ay kula tukadaan marka xaafadan area masaajidku ku yaalana waxa ku badan qoomiyada kale Soomaalidan ugu badan waxay ku leeyihiin maqaayado ganacsi waxyaabo kala duwan marka dadka qaarkood waxay isweydiinayaan sida weerarka uu dhacay hadda waxa ila taagan ninkan magacaaga igu bilow علي حسن ayaa la yiraahdaa waa maadsantahay walaalle ka waran bal horta markuu ugu horeyso maxaa dareemaysaa sida markii uu weerarka walaalle waxaan dareemayaa shock iyo waxaan dareemayaa maartay naxtin maadaama dadka meesha wax lagu yeelay aan maqlay inay dad u badan yihiin Soomaali ilma u badan yihiin dhalinyaro ah inkastoo aan qofka aqoon xalay 12kii ayaa maartay iyo barkii meelahaas wuxuu dhaceen guriga iska joogay raadiyahan ka maqlay meesha maadaama ay bishii Ramadaan tahay muslimkuna ku badan yahay area-da masaajidaduna ku badan yihiin waxaan isdhihi karaa meesha qof macnaha dad toos ah soo handaday ayuu u egyahay laakiin wax meesha ma aha meel moogta dadka la kala garan karo yaa muslim ayaa gaala ah ma aha waxa ninkan waxaan wuxuu u sameeyay inuu dad dilo bay ahay dadka uma kala soconayn dad oo calaamad gaar ah u lahaa oo dadka ka garanayna ma jirin wuxuu u sameeyay wax weey inuu dad laayo ma aha marka Soomaali ahaan muslim ahaan xaafadan degan maxaa dareemaysaa waxaan dareemayaa maadaama meesha ay ka dhaceen masaajidka agtiisa ay tahay bishii Ramadaan lagu jiray dadka uu laayeen dad muslim u badan ay yihiin waliba Soomaali waxaan dareensanahay cabsi ayaan dareensanahay iyo xoogaa argagax dadka bulshada Soomaalida ku yimid macnaha wax target dad gaar ah la target gareynayay bay u egtahay aniga saas ay ila tahay laakiin asaga ujeedadiisa oo wax uu sameeyay lama garan karo ma qiyaasi karo aad iyo aad u mahadsantahay waa mid kamid ah dadka masaajidkan ku taxan xaafadan ku xiran oo imaado oo markaas ku tukada marka dadka badankooda waxay muujinayaan walaac iyo cabsi ah in dhibaato ay kala kulmaan ama weeraro kale ay dhici karaan ama dhibaatooyin kale ay soo gaari karaan dadka xaafadahan ku nool hadda gudaha waxa soo galay oo meesha soo booqday ra'iisul wasaaraha dalkani Britain Theresa May iyo sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka Jeremy Corbyn oo labadaba gudaha ku jiro la kulmaya qoomiyada muslimiinta ee masaajidkan ku xiran ee ku taxan iyo imaamyadii iyo sidoo kale gudiyada islaamka ee dalkani Britain iyo magaalada London marka waxay u badan tahay dadka qaarkood ay ku talinayaan in dadka la isu keeno laga wada hadlo laga heshiiyo dhibaatadii dhacday waxa kale oo ila taagan nin kale oo Soomaali ah isoo dhawow adoo raali ah magacaaga بسم الله الرحمن الرحيم مقعي واحد لنا حسن محمد فنين وحن كنا له حافظا باندقنا إلى 20 سنوات إن كدو إن كنتي إن أدبا أرجع حتى رنتن دعدي إن أويران شنقف والصوماليا ونقول بيرو لا يهاي شارنا هاي isnaqaano wajidada si fiican isku naqaano ayaa wax ku noqday in kastoo ka badan waa inta naqaano shantu wayna ka badan yihiin runtii xaafadan waxaan ku haysanay muslim ahaan opportunity fara badan oo ah inaanu khamiisyadayada dharkayaga dumarkayagu xijaabkooda ay iska xidhnaadaan imaka oo kale cabsi baa ku gelaysa runtii xaafadan lafteeda aad bay muslimiintu ugu badan yihiin وانا حساسي لبدن مساجد حاجه نجا خيغا waxa la yiraahdaa daaru raaya masaajidkana Abu Hamse ninkii la oran jiray gacmaha oo muddo badan xilnaan jiray oo aad midiyuhu fogaska ugu hayn jiray baahay runtii muddo badan marka masaajidka daaru raaya meesha weerarka waxa meesha waa daaru raaya ee dadku markay labadan masaajid ka wada daranaan dariiqan wada maraan way isku darsamaan runtii in badan baa bariga hore u nahaysan jiray fogasku midiyuhu oo amba muslimnimada soo hadalqaadkeedu nagu badnaan jiray runtii waana laga yara degay ilaa wixii 2002-3 ka dambeeyay haddana imakay soo yaro cusboonaatay runtii waxaan ku haysanay xaafadan aan deganahay maanaan dareemi jirin cidhiidhi waxaan dareemi jirnay si habiya khamiisyaan iska xidhnaan jirnay caruuruhu khamiisyo iska xidhnaan jireen isluumayska islaamiya noogu yaalay maanta marka taarget laga dhigto waayo haddaad dib u eegto dadka ninka dhacay wadaadka dul taagnaa dhammaantood waxay wada xidhnaayeen khamiis marka target iska go'an buu ahaa runtii ilaahay baana intan ka waday in ka badan buu layn karlaa waayo bavementka waddada ka soo horeysa ee foonta hii la yidhaahdo hadduu saa u soo maro dadka marayay boqolaal way ka badnaayeen waanu samayn karay marka dadkaasoo dhan masaajidkii ka soo baxay dadka labadan masaajid dadka ku tukada 2,000-3,000 oo qof way gaadhayaan masaajidkana waa 3 dabaq in la yiraahdo Abu Hamse ee imaka ay ku jiraan ra'iisul wasaaraha iyo Jeremy
masaajidkan kalena wuu aad buu guda weyn yahay oo wuxuu leeyahay intaasoo hool buu leeyahay markaa rabadaanta waa la wada buuxiyaa ugu yaraan dad dhowr kun oo qof ayaa ku tukada marka Soomaali ahaan ka sokow qowmiyadaha kale iyo Soomaalida ee xaafadan ku wada nool hogaamiyihii mucaaradka Jeremy Corbyn xaafadan baa laga doortaa dadka dhan isku xirnaanta ka waran marka runtii xaafadan waxa laga jecel yahay ninka la yiraahdo Jeremy Corbyn wuxuu yaqaanaa dadka shakhsi buu yaqaanaa qof buu yaqaanaa magacyadooda amba arrimaha ka galaan amba ha u dacwoodaan runtii maalintii uu tolay marka la doortay halkaas uu kaga soo bilaabay masaajidka uu yimi community-ga Soomaalida oo ugu faraha badan la xaafadan iyo Algerianka iyo Ethiopianka oo imaka ku soo batay saddexda community baa ugu badan Turkishka iyagu businesska ku leeyihiin imaka area-da la hujumay maqaaxida ku xigta Soomaali baa leh 10 mehradood ku xigta Soomaali baa leh 10 opposite-ka ka soo xiga Soomaali baa leh laba suuq oo waaweyn oo mustaqbal iyo la yiraahdo iyo Markay oo iyaguna shopping center ayaa ku yaalo oo dhammaan Soomaaliya marka runtii meel lagu soo hirtay ahayd oo la yimaado suuqan kale suuq caana halka ku yaalo Fontay la yiraahdo oo dharka laga iibsado looga yimaado Yurub oo dhan marka runtii lama dareemi jirin muddo hore ka yara ka hor markii ninkii Abu Xamse la xidhay ka bacdi masaajidkan muddo marka hadda waxa dareemaysaan cabsi laakiin ma jirtaa inay isu imaataan oo cabsida ay baaba'do sababta waa shakhsi keligii oo weerar geysay marka oo dhibaato kale inaysan dhicin runtii waxaan haystaa dawladani kolley ninkan Jeremy la yiraahdo oo ana qoladan dawladda gacanta ku haystaayna jeclayn dadkan aad bay ugu kalsoonayeen community-gan muslimkii in badan buu dhiirigeliyey marka runtii maadaama uu isaguna gurigiisu u jiro wax ka yar 5 minutes wax ka yar 2 minutes loo lugeeyo bartay accident ku dhacday runtii rajo badan baanu qabnaa maadaama nin wanaagsan haysano oo noo hadli kara aad iyo aad u mahadsantahay waa mid kamid ah dadka masaajidkan ku taxan la weeraray wuxuuna sheegay 20 sano ka badan inuu masaajidkan ku tukanaa oo ku xirnaa marka wadooyinkii oo dhan waa la xiray meel kasta ciidamo boolis ayaa joogo dhinacan oo kale gadaasheeda waa kuwa wadada way xiran tahay askar ayaa halka taagan waxa la xiray sidoo kale wadada tareenka uu marayay oo dhan waa la joojiyay baaritaan ayaa ka socda meesha dhan boolis ay isugu imaaday dhinacan kale ee gadaale waxa isugu tagay oo ku jiro shaqooyin badan ayaa ka socday dhaqdhaqaaq oo ay wadaan ciidamada baaritaan ayaa sidoo kale socdo marka haddana dawladdu waxay sheegaysaa in weerarkii dhacay ay u tixgelinayaan sida weerar argagixiso oo kale waad mahadsantihiin waad nala socon kartaan baraha bulshada iyo barteena BBC somali.com aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa sidoo kale faahfaahin iyo wixii warar ku soo kordha waxaad dib uga daawan doontaan BBC Somali TV galabta ama fiidka 8 fiidnimo caawa aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin daawashadiina